saaka fariin ayaan idiin wadaa fariintaas ay idiin wadana ummadda Soomaaliyeed way ka duwan tahay fariimihii hore soo gudbin jiray aniga qaaska ahaa ay codsiga ahaa aniga codsan jiray waxa saaka inaga codsanayaa Ilaahay dartiis inaad ku faafisaan ee ku sheer gareysaan laga yaabee fariintaydan inuu qof walaalka ah oo maanta ku jira xumaan inuu kaga soo hanuuno oo xumaanta kaga soo noqdo aniga xalal riyaal la tusay wallahi billahi aan been sheegaynin xalawaan waa la ikaxeeyay waxa la iigeeyay qoon la yiri waa qoomka ku jira baraha bulshada dadka caanka ahaa waaye la yiri laakiin wajiyadoodii waa liiga qariyay wajiyadoodu way dabalnaayeen waxaana laga saaray aniga dhowr qof oo kale iyo banaanka looga saaray dadkii markii dadkina laga saaray dadkii niman waaweyn oo xoog badan baa weelal madmadow waxay ugu geeyeen waxaan isleeyahay markaa waa dacaam waa cunto wixii bay siiyeen wixii way sidii wax gaajo u dhamaaday ee geel laga soo furay camal wixii ku qamaameen way cuneen dadka iyaga aha markay daqiiqado taagnaayeen dhagaha iyo sanka iyo dabada iyo waxa ka soo daatay wax madow aan la yaabay marka iyada aniga aad uga naxay oo naga argagaxay dadkii wixii say uga suumayeen uga socdeen jirkoodii ba isbedelay way madoobaadeen way isbedeleen sidii ay ahaayeen markii hore way iska bedeleen marka iyada dadka wajigooda ma arko aniga kooxdii yareed waana la kaxeeyay waxaana la geeyay meel aan isleeyahay waxaana la dul taagay oo ceel ahaan isleeyahay waa ceel meeshii baa lagu riday waana lagu dhaxriday meeshii hadina lagu dhaxriday meeshu waa meel wasaq badan laakiin waxa waaye qabow oo baraf moodaysid meesha waxa ku soo raaracday laamba ku soo raaracday meesha korkeeda laanti baan maagay aad qabsatid ani ahaantayda dadkii kala maaqan meel iga aadeen laanti markaan isiri aad qabsatid laanti gacantii baa isuuxday ruuxii baa iga tagay laanti markaan aad qabsatid ceelka salkiisaan tagay waan soo noqday mar labaad haddana laanti markaan 3 jeer laanti qabsaday ruux xoog badan nin iyo naag wuxuu yahay aan sixi karin baa gacanta ii soo taagay wuu iga soo saaray meeshii anoo dhooqadii iyo maryahaygii wixii isku dhagan yihiin wuu ikaxeeyay wuxuu ii geeyay dad cadcad meel jooga meel farfadhiya waxaa la igu furay tubo biyo ah aan isleeyahay waa biyo gibi ahaanba wixii dhooqadaha dushayda saarnaa waa iga degeen waa la iga qaaday waxaa dhacday in la yiraahdo dadkii ma arkaysay la siinayay cuntada dabada iyo sanka wallahi ilaa haddan argagaxsanahay ma arkaysay waa dadka caanka ah ee baraha bulshada ku jiro dadkaas waxa ku soo socda masiibo baa ku soo socota masiibadaasna waxa ka badbaadi doona dad yar ee fariintaas ay gaartay dad yar ee fariintaadu gaartay ee soo hanuuni doono si Ilaahay dartiisa wax u qaban doono ama uu cibaadeysan doono oo ka soo noqon doono xumaanta ku jiraan dadkaas ba Ilaahay badbaadiyo dadkan kale masiiba ku soo socoto fariintaada intaad gaarsiin karta gaarsii baa liiri waa ummad walaalahaya waa ummad laa ilaaha illa allah kula wadaagta wallahi aad baan u argagaxay waxaan qaali walaalkay daawanayo waxaan ka codsanayaa Ilaahay dartii waxaan kaaga codsanayaa inaad ii sheer gareyso fariintaydaasayto laga yaabay anigaan xasanana inuu Ilaahay dambiga iiga meero dad badan walaalaheeya ay ku hanuunaan waliba waxa la ii raaciyay waliba iskama warqabaan dadkood qaarkood waxa la yiri Ilaahay shil buu qaar ku halaagay qaar cudur baa ku dhacay ismana oga wali may soo baraarugin masiibada ku soo socotaana ka weyn u sheeg bali fariinta gaarsii laakiin dad yar kooban baa hanuuni doona oo fariintadas qaadan doona walaal Ilaahay dartiis waxaan kaaga codsanayaa inaad fariintaas faafisaa ee qof allaaliyo qofkii caan ee baraha bulshada isticmaala aad ku mishgaraysaa oo ku sheer garaysaa wallahi baanan maanta taan fayuus raadinaynin wallahi maanta waa hadalka wuu idibayaa waan gariirayaa ilaa maanta wax way iga degilaayihiin waa naxsanahay waa argagaxsanahay meelihii la imarsiiyay imtixaanka aan maray aniga laftirkayga wax fiican ma sameeyo waayo Ilaahay wuxuu ii diray inaan Ilaahay asaga aan caabudo wuxuu igu keeno qadarana asaga aan ugu samro irsaaqdi Ilaahay ii qorana asaga aan ka sugo wallahi waxyaalo badan oo gafo Ilaahay uusan raali ka ahayn baan sameeyaa walaal Ilaahay dartii iigu sheer garee fiidiyogan
dareenkayga maanta wallahi waa nooc kale waa la ila soo dardaarmay anigana waxa la yiri xagga qalbiyan qof wanaagsan baa tahay dadka ma dhibtid laakiin sidii laga rabay 100% maahan marka ilaahay dartiis ku faafiya meel dheer ku gaari culimadana ku sheer gareey insha Allah